halkani waa magaalada Muqdisho oo ah mid sameynaysa horumar ballaaran isla markaasina ah mid si weyn u dhismaysa marka deegto dhinac walba waana mid ka wax ballaaran ka sameynaysa ganacsiga guud ahaan deegaanka xeebta Muqdisho ayaa ah mid soo jiidasho leh bulshada magaaladuna waa kuwa soo dhaweyn wanaagsan isla markaana kugu qaabilaya farxad intii aan joogay Muqdisho waxa si weyn xiiso galiyay tiknoolajiyada oo ah mid xawli ku socota gaar ahaan shirkadaha isgaarsiinta oo la jaan qaadaya adeegyada caalamka ee dhanka isgaarsiinta hadalka goobaha loogu talagalay in laga iibsado cuntada noocyadeeda kala duwan iyo alaabaha guryaha ayaa kuwa si weyn loo casriyeeyay السلام شكرا نيو جرانتي نبدأ يورا سهل سوي محمد عماتي محمد بن شباب رياش سدوة مثلا هذا ما سنت ايوه ايوه waxaad si fudud u iibsan kartaa adigoo jooga magaalada Muqdisho guud ahaan dunida adigoo isticmaalaya kaararka wax iibsiga oo ay hirgeliyeen bangiyada dalka waxaana taasi fududeysay tiknoolajiyada casriga ah halabuurka dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa isaguna ah mid cajiib ah waxaana arkaysaa ganacsiyo kala duwan kuwaas oo ay asaaseen dhalinyaro kala duwan kana qayb qaatay shaqo abuurka dhalinyaro kale dhismayaasha laga sameeyay burta ayaa ah kuwa iyaguna magaalada ku soo badanaya sanadihii u dambeeyay waxaana ay fududeeyeen kororka dhismaha ee magaalada waxaa sidoo kale markii ugu horeysay si weyn magaalada ugu soo badanaya xaafadaha gaarka loo nashqadeeyay loona dhisay si casri ah oo adeegyadoodu dhammaystiran yihiin adeegyada cajiibka ah aan ku arkay magaalada Muqdisho intii aan joogay ayaa waxa kamid ah adeega tagaasida oo aad si fudud u helayso adoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah isbitaalada caafimaadka ayaa ah kuwa ku dadaalaya inay fuliyaan adeegyada caafimaad ee looga baahnaa dalka dibadiisa si loo caawiyo dadweynaha mararka qaarna dadweynaha ugu adeega si lacag la'aan ah dhismayaasha iyo hoteelada ayaa ah kuwa loo nashqadeeyay si casri ah waxaa si weyn ayuubahanay soo jiitay moolkan oo ah mid ka duwan dhammaan moolasha magaalada waxaana badi meheradaha ka furan ay yihiin kuwa caalami ah asxaabta waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan joogaa mool runtii aad iga yaabiyay intii aan ku sugnaa magaalada Muqdisho moolkan waxa weeye mool dhammaan dukaanada ku yaala ay yihiin mool baraana oo runtii aan caadi ahayn dukaanada halkan aan ku arkay waxa kamid ah dukaanka US Polo ayaa kamid ah runtii waa dukaan aad u weyn oo caan ah dunida laga wada garanayo halkan joogaa asxaabta maaha Dubai manaha Istanbul waxa weeye magaalada Muqdisho saad arkaysaan dukaanka US Polo wakaas weeye dukaan runtii caan ah dhammaan waa wada taqaanaan baraanada kale halkan aan ku arkay runtii iyaguna waa kuwa caalami ah goobaha lagu caawiyo kuwa madadaalada iyo maqaaxiyaha cuntada ayaa iyaguna kuwa casri ah oo si xawli ugu soo kordhiya Muqdisho masaajidada ayaa ah kuwa loo qurxiyay si cajiib ah loona sameeyay goobo ay ku nastaan dadweynuhu
asxaabta waxaan rabaa inaan idin tuso mid ka mid ah masaajidda ugu quruxda badan guud ahaan deegaanada Soomaalida inta aan marayay runtii masaajidkani sida loo dhisay sida loo qaabeeyay sida loo qurxiyay oo ay ka duwan tahay kuwa ku yaala deegaanada Soomaalida أشهد أن لا إله إلا الله muqdisho ayaa ah mid aad u qurxoon xilliyada kala duwan ee maalintii gaar ahaan waqtiga habeenkii oo ah mid soo jiidasho badan ay sameynayso bilicda magaaladu ayuub ahaan intii aan joogay magaalada muqdisho waxay ahayd waqti cajiib ah oo xiiso badan isla markaasina aan la kulmay saaxiibo badan oo wanaagsan muqdisho ayaa ah magaalo deegaan qurxoon leh sidoo kalena leh xadaarado kala duwan muuqaalada qurxoon iyo bilicda deegaanka xeebta ayaa ah kuwa aanan ilaabayn waa hubaal in muqdisho ay tahay magaalo isdhiib weyday una socoto jihada magaalooyinka waaweyn ee dunida ku xidhow ayuub show lana soqo muuqaal cusub sidoo kale filo muuqaallo casri ah oo kuwan la mid ah guud ahaan deegaanada iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida